hantiin kusoo dhawaada YouTube channelka Qodax Production fadhahadaad ka soo tahay subscribe saar like saar share kale comment mahadsanid ma ogtaan in ka badan 190 wadan in loo aqoonsan yahay inay yihiin wadamo jira oo xor ah kuwaas oo calaamantoodu yeelan qaramada midoobay balse ay jiraan wadamo fara badan oo aan la aqoonsanayn calaamantooda qol qaramada midoobay koogu maanta barnaamijka waxyaalo ku saabsan jamhuuriyadda Laco waxay baaxad la eg tahay dalka Mareykanka ama Siiriyada Aasiya waxaana mar aqoonsaday dalka Mareykanka wuxuuna kala laabtay aqoonsigii uu siiyay markii hore 1880 labo jamhuuriyadda Transnistria waa dal ku yaala bariga qaaradda Yurub waana dal leh baarlamaan lacag ciidan iyo wax kasta oo dawladda buuxin karto shuruudaheedii waxayna xataa ku guuleysatay dagaal ay gashay 1992 oo ay ku xoroobaysay balse waxa dib ku haya inay ka tirsanaan jirtay markii hore dalka Moldova taasoo ay ka baxday Moldova dunkeedu waxa ku jirtay dalka waxaan la dhaho Soviyetka waxayna ka baxday Soviyetkii 1990 taasoo isku diideen Moldova iyo Transnistria inay ka baxaan Ruushka sida daraadeed ay Moldova ka baxday Soviyetkii Transnistria ay dhahday Ruushka inaan ku jiro weeyaan ama waa inaan noqono dawlad madax banaan waxayna qaateen qorshihii ahaa inay noqdaan dawlad madax banaan walba iminka cadaadisyo fara badan oo siyaasadeed ku jiraan dadka Transnistria waxa lagu qiyaasaa 500,000 oo qof waxayna waliba iyagu daacad u yihiin dalka Ruushka waayo siyaasadooda wax walba waxay la xiriiraan wadankaas 3 Beritiland waxay u dhaxaysaa dalka Namibia, Botswana, Zimbabwe iyo Zambia. Beritiland waxaa deegaan qoomiyado dhowr ah oo kala ah dhaqamo diibo waxyaalo kala duwan haysta sida la sheego taariikhda warisan waxay xorriyad qaateen 1964 afar Thailand waxay xuduud la leedahay Hindiya, Bangladesh iyo Myanmar dadka Thailand waxa lagu qiyaasaa 1.5 milyan oo qof waxaana degan 6 qowmiyadood oo kala dhaqan iyo diinba duwan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته برنامج كمان تاني تصوير نوعك إن شاء الله بدنا كلنا صعداء قيبتي صلوات